bismillaahi araxmaani araxiim. taariikhdii dagaalkii la foole ee dhex maray soomaalida iyo talyaaniga habeennimadii 25 iyo subaxnimadii 26 Noofembar sannadkii 1896 qaybta lixaad. dadka Soomaaliyeed waxay degan yihiin dalka Afrika jacalkiisa bari. waataan hore u soo sheegnay in mid saacado yar gudahood 13 caddaan ah iyo 18 askari oo carab ahaa la dilay. waxaa xusid mudan in waxa la beegsaday aysan ahayn oo keliya caddaanka iyo askarta carabta ahaa oo Yaman ahaa, balse sidoo kale waxaa la weeraray dadkii Soomaalida ahaa ee la socday safarka, oo uu ka mid ahaa wiil uu dhalay imaamka Muqdisho iyo 3 turjubaan, qaarkoodna la dhaawacay oo si dirqi ah ku baxsaday. talyaaniga 3 badmaax oo keliya ayaa gaaray Muqdisho oo dhaawac ahaa, oo qabarka guuldarrada geeyey magaalada. Federico Garigante, Natale Bonasera iyo Nicolo Vianello, oo uu kan dambe qabay dhaawac xun oo ahaa 2 fallaarood oo ay mid kaga taal dhabanka ta kalena cududda. imaanshoodu waxa uu sii kiciyey rajada laga qabay in ay kuwo kale oo nool ka soo laabtaan safarka nasiib darrada ahaa. laakiin turjubaan Xamed Faaya ayaa yimid oo quus ka keenay in cid kale ay ka badbaaday safarka. gudoomiye Duulio waxa uu qaaday tallaabooyinkan. waxaa isla markiiba la xiray iridaha magaalada. 4 qori oo waaweyn oo boobayaal culus ah ayaa la dul saaray daaraha magaalada ugu dhaadheer oo laga soo dejiyey maraakiibta Stafetta iyo Volturno. sidoo kale 2 urur oo ciidan ah ayaa ka soo degay xeebta, iyaga oo amarka haysta ku-xigeenada taliyayaasha labaad oo ahaa Melena iyo Kashia. ciidankaas oo la rabay inay raad goobaan wixii ka badbaaday weerarka. ciidanku waxay wateen madaafiic, waxaana lagu ridayey meelo bannaan si ay u jiheeyaan cid kasta oo ka mid ah dadka maqan iyo badmaaxiinta raadgoobka ku jira labadaba. balse dadaaladaas waxba kama soo naasa caddaanin, waxayna u muuqatay inaysan jirin rajo. kadib waxaa loo guntaday sidii loo soo celin lahaa meydadka raggii la socday sahanka. subaxnimadii xigtay waxaa mar labaad dhaqaaqay ciidankii ka amar qaadanayay 2 sarkaal ee aan hore u soo sheegnay, oo wataa awr, dermooyin iyo qalab kale oo ay dib ugu soo celinayaan meydadka. laakiinse waxaa lagu amray in ay dib u soo gurtaan haddii lasoo weeraro. weerarkaasi wuu dhacay oo 100 Soomaali ah ayaa soo weeraray, waxaana qasab noqotay inay dib u soo gurtaan. Duulio wuxuu warbixintiisa ku xusay qabaa'ilka weerarka soo qaaday in ay ahaayeen kuwa degan dhulka ku dhow magaalada oo aad uga faa'iidaysanayay barwaaqadeeda. markaa waxaa dhici karta inay rabeen inay eryaan ciidanka ajnabiga ah iyo sidoo kale maamulka ganacsiga rayidka ah, kuwaas oo kor u qaaday nolosha dadka degan magaalada. su-aashu waxay tahay, maxaa diiday suldaanka Galladii in uu qaabilo talyaaniga? waataan hore u soo sheegnay in xilligii uu ambabaxay sahanka, suldaanku kuma sugnayn magaalada Afgooye ee waxaa xilka si kumeel gaar ahaan ah u hayay suldaanka adeerkiis. waxaa laga yaabaa in ka maqnaanshaha suldaanka kursiga xukunka ay ahayd mid ula kac ah, maadaama la ogaa in raggii weerarka geystay uu ku jiray nin suldaanka adeer u ah. Duulio wuxuu go'aansaday inuu adeegsado xeelado diblomaasiyadeed oo isku dhafan, wuxuuna ka codsaday imaamka iyo cuqaasha Muqdisho in ay xiriir la sameeyaan qabaa'ilka weerarka geystay si ay u soo celiyaan meydadka. Duulio waxa uu yidhi, waxaan u sheegay in la soo gaaray waqtigii ay daacadnimadooda u muujin lahaayeen dowladda talyaaniga. waxa kale oo uu soo xirxiray dadka aan magaalada deganayn ee ku xayirmay magaalada kadib markii albaabada magaalada si degdeg ah loo xiray. waxaana u suuro gashay Duulio inuu gacanta ku soo dhigo 86 la hayste. qaar ka mid ah Soomaalida ayaa si dhiirani iyo geesinimo leh loogu arkayay dhulka bacaadaha ah ee magaalada bannaankeeda ah, iyaga oo dhaqdhaqaaqyo ka samaynaya. 3 ka mid ah ayaa askartu soo qabteen, waana la dilay. mid ka mid ah ayaa gacanta laga jaray, kadibna waxaa loo tuuray libaax qafas ku jiray. waxaa jiray sawirro qaar ka mid ah maxaabiista oo lagu faafiyey talyaaniga. baarlamaanku waxa uu amray in xoogga la saaro sidii loo soo celin lahaa meydadka.
laakiin subaxnimadii ay ahayd in la fuliyo howlgalka, hogaamiyeyaasha wacdaan waxay muujiyeen inay rabaan inay mar kale la hadlaan imaamka. markay ergadu soo laabatayna imaamku wuxuu soo gudbiyey shuruudahooda. wacdaan waxa uu soo dhiibi doonaa meydadka, iyaga oo ku bedelanayay 17 ka mid a maxaabiista lagu qabtay magaalada ee la haystayaasha ahaa. fariinta wacdaan waxay ahayd mid canaan iyo faan uu ka muuqdo. wuxuuna sheegay talyaaniga in inta ay ku dareen, haddii aan nahay dowlad sarkaal, iyaguna inay yihiin dowlad, sidaa darteed shuruud ayay dalabkeenna ku xireen. si kastaba ha ahaatee talyaaniga wax doorasho ah ma qabin. inta wadaxaajoodka lagu jiro wakhtigu wuu socdaa, kulaylka dhulbarahana ma saamaxayo in wakhti dheer la sugo meydadka. intaa waxaa dheeraa, dadka deegaanka xitaa haddii aanay waxba galabsan waxay ka maageen inay soo galaan magaalada. sidaa darteed dhulka miyiga ah ee hareeraha magaalada wax badeeca ah kama imaanin maalmo, waxaana caddaatay in macaluul ay khatar ugu jiraan degmooyinka uu talyaanigu xukumo, taas oo ay ugu wacan tahay go'doominta ay soomaalidu ku sameeyeen. xaaladaas hadda ka hor waxay soo martay dhacdadii weerarka lagu qaaday badmaaxiinta ee warshiiq ee aan horey ugu soo sheegnay qaybihii hore sannadkii 1893. waxayna sidoo kale dhacday marar kale, sida dhacdadii dilkii Trevis ee degmada Marka. waxaa la go'aamiyey in la aqbalo isku beddelashadaas, balse taas waa inta aysan jirin wax kale oo dhib ah oo ka yimaada dhanka Soomaalida. haddii kale waxaa la toogan doonaa 5 qof oo ka mid ah dadka la qafaashay maalin walba. maalintii xigtay 2 Diseembar weli ma jirin wax jawaab ah dhanka wacdaan. 5tii ugu horreysay ee la haystayaasha ahaa ayaa la toogtay. dhanka kale, markabka Governolo ayaa loo diray magaalada Marka si uu cunto ugu soo daabulo muqdishada gaajaysan, iyo inuu soo duqooyo tuulada Nimow oo ay degganaayeen qabiilka wacdaan, gaar ahaan hogaamiyahooda Sheekh Axmed Xaaji. wadaxaajoodka soo celinta dadka dhintay ayaa qaatay waqti aad u dheer. habeenkii bisha Diseembar ay ahayd 8 waxaa la soo celiyey meydadka Kabtan Francisco Mongiardini, Kabtan Ferdinando Meffi, Lucindo Paroni, Bernardo Gasparini iyo Vincenzo Di Cristoforo. sheeki kuma uusan jirin soo celintaa hore. waxaa la sheegay in madaxiisa la wadwaday tuulooyinka, kadibna meel bannaan laysaga tuuray. dhowr maalmood kadibna geed ayaa la saaray. muddo kadib ayay suuragal noqotay in la soo celiyo, waxaana arrintaas si aad ah uga howlgalay Soomaalidii la shaqaynaysay Talyaaniga. dabayaaqadii January sannadkii 1897 weli qaar badan ayaan la aasin oo yiil meeshii ay ku dhinteen. meydadka sheeki iyo saraakiisha Meffi, Mongiardini, Gasparini, Paroni iyo Di Cristoforo si ku meel gaar ah ayaa loogu hayay dhismo ku dhow La Garessa oo ahayd qalcaddii Saciid Barkash. Janaayo 26 sannadkii 1897 waxaa Muqdisho yimid guddoomiye aan caadi ahayn oo ay dowladda Talyaanigu u soo dirtay gobolka Banaadir, oo uu magaciisu ahaa Giorgio Sorrentino, taliyihii markabka Elba. wuxuu go'aansaday inuu baaritaanno xoog leh sameeyo, si dhaqso ahna u xalliyo mashaqada. dhowr maalmood kadib, 1 bishii Febraayo sannadkii 1897, Sorrentino, Duulio iyo dhammaan ciidankii oo wata madaafiic iyo 2dii urur ee ka soo degay markabka Elba iyo Governolo ayaa waxay u dhaqaaqeen inay dib u soo celiyaan lafaha meydadkii aan la xabaalin. wacdaan wax dagaal ah ma soo qaadin. Sorrentino wuxuu qabanqaabiyey baroordiiq xushmad iyo maamuus ciidan leh. xafladda aaska ah oo ka dhacday qubuuraha askartii dhimatay Janaayo 28 sannadkii 1897 oo ahayd kiniisad ku dhow xeebta. kadib baroordiiqda, Giorgio Sorrentino waxa uu aaday buuraha bacaadka ahaa ee magaalada si uu u doorto halka laga dhisi lahaa qalcad loogu magac daray Antonio Sheki oo ahayd Forte Sheki. waxaana lagu hubeeyey 4 qori oo cabirkoodu ahaa 75 milimitir. waxaana lagu wareejiyey derbi 4 gees ah, waxaana laga dhisay manaarad iyadana 4 gees ah. waxaana la mariyey rinji cad iyo rinji madow si ay bartilmaameed ugu noqoto maraakiibta. dhulka duurka ah ee ku dhow Lafoole waxaa laga dhisay taalo lagu xusuusto dagaalkii Lafoole ama xasuuqii Lafoole sida uu Talyaanigu u yaqaano, taas oo ilaa iyo hadda ka dhisan halka. intaana waxaa noogu dhammaaday qaybtii 6 ee dagaalkii Lafoole ee dhex maray Soomaalida iyo Talyaaniga.
qaybta toddobaadna kala soco isla halkan oo ah rugta hiddaha oo aan kaga hadli doono falcelintii dagaalka kadib ee dadka degan gobolka banaadir iyo tan dowladda talyaaniga. taariikhdu dadkay bartaa inay dantood gartaane taariikhdu dadkay bartaa inay dowladtuusan maraane